halkan waa cisbitaalka guud ee degmada Xingalool waxaa maanta la soo gaarsiiyay dad dhaawaca iyo dhimasho isugu jira dadkan oo tiradoodu gaarayso 150 qof waxay ahaayeen muhaajiriin ka yimid Itoobiya waxa ay ku socdeen magaalada ganacsiga Puntland Boosaaso waxaa gaari kula dhacay agaarka degmada Xingalool waxaa dhaawacooda la soo gaarsiiyay cisbitaalka guud ee degmada Xingalool sida inuu muuqato dadkan tiradoodu aad u badan tahay waxa ay ka tambateen cisbitaalka xajmigiisii cisbitaalku ma qaadi karo dadka inta leeg waxaa guud ahaanba dhamaaday irbadihii irmaantiisiga ahaa sida irbadii dhiig joojinta irbadii kaarjibinta sariirihii waa buuxsameen dhakhaatiirtii dad iyo bukaankii waa kala bateen waxaa ku jira bukaanada tan qaar dhaawacooda aad iyo aad u culus yahay oo aan dalka gudihiisa waxba laga qaban karin oo u baahan dhakhaatiir dawladda in loo geeyo qaar baa u baahan operation emergency in lagu sameeyo dhakhaatiirta cisbitaalka aad bay la tacaaleen walow aan xaaladooda si fiican wax 100% oo wax uga qaban waxay baaq u dirayaan dhammaan hay'adaha caafimaadka safaaradda Itoobiya ku leedahay Garowe iyo safaaradda Itoobiya ku leedahay Hargeysa in dadkan ay soo gurmadaan in dadkan la gaaro gurmad degdeg ah oo cisbitaalo quality oo xaaladooda lagu tacaalo la geeyo waa kuwan dad qaar ka mid ah dadka degmada Xingalool oo ka warbixinaya sida xaaladdu tahay iyo sida dadkan leeyahay xaaladda waxaan ogeysiinaynaa ummadda islaamka meelay joogtaba arrin baa maanta ka dhacday shil ah oo aad u yara aad u qadhaadh gaadhi baa isla rogay 160 ruux oo dusha ka saaraa dadkii intii badnayd 40% dad lagu qiyaasay wax dhaawacan dhowr waa dhinteen dhowr koobay ku jiraan marka arrintaas iyada ah tuulada Xingalool bay dul joogaan Xingalool waa ka tambateen wadeedii iyo noloshii iyo wax walba waa u baahan yihiin marka dadka muslimka meel joogada waxaan ogeysiinaynaa in arrintaas loo soo gurmado ummadda masaakiinta ah oo silicsan oo dhimanaysa oo dhaawacan oo dhibkaas uu ku dhacay waajib wada saaran weeye dadka annaga wax la harimayno walaakiin dadka kale oo nagu dhowna waajibka saaran waa inay loo soo gurmadaan hawshan wax nagala qabtaan hadday maamulay yihiin hadday dawladda yihiin hadday dadweyne iyo odayaal iyo dadka wax qaradka ah hadday yihiin hadday bacbisay iyo dad wax sadaqaysanaya xoolaaysayiin kulligeed culays baa ina saaran وحق إلهي امتحان نقص خارن ويده وإلى سوق برمتان ونولوي هذا ماشان ودتك سيد وحلو لو يقبل لها مسبتال في عروة وين لو جاي لها وإن هرتا سيادة نولوي معناه نولوي سوق الجارة ونولوي هذا وحق إلهي وحكر غيرنا إن هوش إلهي نقض إنه قولن يقولوا سيد حريص كشرته وإن هرتاس أتكسب على الجرجار كده دق هلنا أنت ولي عسل كلا جاري halkan waxa ka dhacay arrin masiibo ah oo dad 160 ah wax dhintay iyo wax dhaawac halka yaala waxay u baahan yihiin in loo gargaaro annaga haddaan Xingalool nahay maanta qado dadka waa ka xaaraan waxa ka xaaraan in ku fadhiisto maanta wixii talxay waa qabanayna kuwa naga taweynta arrintaasi arrin naga taweyn weeye waxaanu burmadka u horeeyaan uga baahanahay dadka nagu dhow dhahar oo kale baran oo kale Boosaaso oo kale Ceerigaab oo kale ayaanu uga baahanahay burmadka Garowe waan uga baahanahay walku waxa ku cisbitaalkii weynaa Xingalool maanta masiiba ka dhacday 160 qof ayaa gaadhi isla rogay xubinta waaraad ah dadkan waa dadka Itoobiyaana oo tariib ah ku socday Sacuudiga 160 qof hadda qolka meedka waxa yaala sida leesh dhakhtarku xaqiijiyay shaqo baa yaala haddana mid baa sheegay nafta waa 6 baa dhintay waa garaab 160 waxaan 20 qof dhamayn ayaa ka caafimaad qaba isbitaalku ma qaadi karo capacity-ga hadda waxa gabaabsiya daawooyinkii gabi ahaanba waa gabaabsi dadkuna koomay ku wada jiraan waxaan ku codsanaynaa cid kasta oo ugu horeyso aragta muuqaalkan inay si degdeg ah soo gaaro dadka gargaar degdeg sida safaaradaha Itoobiya oo ugu dhow oo sida kuwa Garowe iyo Hargeysa oo kale inay si degdeg u soo gaaraan iyo hay'adaha madaxa banaan iyo gobolada noogu dhow oo xarumaha weyn caafimaad ay ka jiraan waxaan ku codsanayaa si degdeg in gargaar la soo gaarsiiyo caafimaad dadkan haddaan la qaadin xukuumo ku jira 30 qof iyo 40 baad xukuumo ku jira qaarna hadda nafta ka sii baxaysa waadku waa buuxsamay dhakhaatiirtii waa ka tambateen haween maxay ma qaadi karaan hadda cid adeeg gaarsiin karta ma jirto isbitaalkuna waa ka dhamaaday wixii daawo taalay iyo wixii adeeg yaalay waa dhamaadeen marka waxaan si xushmad loogu codsanaynaa oo naxariis ugu jirto in si degdeg loo soo gaaro dadkan. Assalaamu calaykum.